maanta waxaan jecelahay marka u horeysa inaan ku horeysiiyo labada wasaaradood ee maanta kala wareejinaya ahmiyadda ay leeyihiin waa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda qorsheynta labada wasaaradood wasaaradda waxbarashada haddaynu soo qaadanno hal qodob baynuba ka soo qaadan karnaa tusaale adduunyada hore u martay qorshayaal la dejiyey oo loogu talagalay in saboolnimada lagu yareeyo cid kasta markay isku timid laba qodob baa la dhaafin kari waayey weliba sab-saxaaraha sida fakhrinimada ama saboolnimada looga saarayo laba qodob bay World Bank waqti hore research ay samaysay ku soo koobtay waxay tiri laba siyood baa looga bixi karaa koow waxbarasho iyo sektorka waxbarashada la horumariyo dadka wax la baro iyo laba qofka oo marka horeba dee qoys wealthy ama qaniya ka soo jeedo dhaxlay wixii kaalintaas ayay ku jirtaa markaa horta wasaaradda waxbarashadu inaga colaadihii iyo waxyaabihii dhacay dhan buu ka saaray khadka uu ka saaray oo laba siyood mid u noqotay koow inay dhintaan laba inay naafoobeen saddex in ayna aqoon lahayn wadaada 50 jir ilaa iyo 69 jir u dhaxaysa maanta in yar baa kaga jirta daadeenna wasaaradda waxbarashadu maanta waddanka resultka ay gaarsiisay waxay soo gaarsiisay gaabka way degdeg bay soo gaarsiisay annaga ka mid ahayn dadka wax soo bartay wasaaradda qorsheynta markaan nahay waxay ku jirtaa shaqo la'aanta qayb bay ka tahay waa labada institution ee shaqo la'aanta iyada iyo wasaaradda gaashaandhigga waxa weeyaan unemploymentka iyo camal la'aanta iyo culayska dhaqaalaha maanta qoysaskeena haysta wasaaradda waxbarashadu qayb muhiima ayay taasna ka qaadataa aad waxaan marmarka qaarkood uga naxaa marka ciidamada iyo waxa la soo hadal qaaday baaragtay ama hadallada negative-ka TV-yada iyo waxaan ka maqlo waan ka xumaadaa because sectorka security-gu kaalin weyn buu wuxuu ka qaataa xagga shaqada ma waayo over 90% dadkeenu ama skill ma leh ama waxba may soo baran marka mechanism-ka aynu dadkeena shaqada ugu abuurneen camal la'aanta kaga beeno waxa weeye security sector-ku qayb weyn buu ka qaataa marka arrimahaasna inaynu aad u fiirsano aynu maskaxda weyneyno horta waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa wasiirkayga cusub Dr. Buuxane waxaan aad u sagootay wasiirkaygii hore Mr. Torno oo leeyahay ilaahay xilka qaranka qaaday ha kugu asturo wasiirkana waxaan leeyahay ilaahay ka dhigo wasiirkii waxbarashada halkay wasiirada hore gaarsiiyeen meel ka fog gaarsiiya waxaad noqotay wasiirkii 16aad ee soo maray wasaaradda waxbarashada tan iyo intii aynu la soo noqonay madaxweynaha mudane wasiir soo dhawow intaa kadib waxaan jeedinayaa warbixin yar oo kooban oo halkan aan ku tusi doono oo ka hadlaysa waxqabadkii 4 sanadood ee wasiir Axmed Toorno la joogay oo qabsoomay wasaaradda waxbarashada saynisku waa wasaaradda qaranka uga mas'uulka ah gaarsiinta adeeg waxbarasho oo dheeli tiran Jamhuuriyadda Soomaaliland dhan saddex xiblo oo waaweyn ayaanu higsanaa ka wasaarad ahaan fidinta waxbarashada dheeli tiran waxa weeyaan halka aanu ka duulo tayada waxbarashada aanu fidinayna waa qodobka labaad maamul wanaagga waxbarashada waa wixii imika aad loogu socdo iyadna noo ah himilada saddexaad waxa weeyaan guud ahaan ardayda waxbarashada Soomaaliland heerarka kala duwan waxa weeyaan koow waa barbaarin laba waa dugsiyada hoose dhexe saddex waa dugsiyada aasaas sare afar waa dugsiyada muxuu ahaayay waxbarashada dadban guud ahaan ardayda imika lagu wareejinayaa maanta waxa weeyaan 540,000 oo arday waxaana laga soo bilaabo 330,000 oo arday 2009 markaas mareysay alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan soo dhaweynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada Dr. Axmed waxaan kaloo sabootinaynaa wasiirkaygii Axmed Toorno oo leeyahay saacad wasiir aad iyo aad baad u mahadsantahay sidii aad wasaaradda uga soo shaqaysay waxaan u mahadnaqayaa wasiirkayga wuxuu ahaa wasiirkii koowaad ee markuu yimid wasaaradda waxbarashada magacaabay habal ilaa la yiri wasaaraddu waxay isku bedeshay now shalayna waxaan ku idhi ha kala hadhi dadaalka hablaha la haysay marka qorsheynta tagto dawada hablaha ku goognahay wasiirka cusubna waxaan ka rajaynaynaa insha Allah bismillaah kariim shaqaalaha wasaaradda oo dhan ku hadlaya gasma waxiidada waan ku soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta ogolaaday inaynu isugu nimid madoo madashan quruxda badan
waxaan u mahadcelinayaa wasiirkii hore ee wasaaradda qorsheynta wasiir Axmed Buuxane sida quruxda badan ee wasaaradda u soo hayay muddadii uu xilka hayay waxaan soo dhaweynayaa wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta Axmed Maxamed Diiriye Axmed Toorno wasiir wasaaraddu waa wasaaradaadii Axmed Toorno wuxuu ka mid ahaa wasiirka wada shaqeynta shaqaalihii wasaaradda joogay ee la taliyaasha ahaa wax ka soo dhisay sistamada wasaaradda qorsheynta marka wasiir waxaa timid wasaaraddaadii ku soo dhawow iminka iyo mar kastaba anigoo ku hadlaaya magaca wadaagayaasha wasaaradda waxbarashada ama Education Sector Forum waxaan idin leeyahay mudane wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta iyo wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada imikana wasaaradda qorsheynta Axmed Maxamed Diiriye waxaan idin leeyahay soo dhawaada adiga waxaan ku leeyahay wasiir Buuxane soo dhawow adigana waxaan ku leeyahay wasiir aad baad u mahadsantahay muddadii aan wada shaqaynaynay haddii aan ku bilaabo Education Sector Forumku wuxuu ka kooban yahay hay'adaha caalamiga ah ee loo yaqaan international NGO-ga iyo hay'adaha maxalliga ah iyo hay'adaha UN-ta ah ee gaar ahaan wasaaradda waxbarashada sida tooska ah ula shaqeeya waa forum platform ah oo bil walba shir ku leh halkan ay la shiraan wasaaradda waxbarashada oo dhan howlwadeenadeeda forumkani waxaan is oran karaa waa kaliya inta badan si fiican u shaqeeya marka loo eego sektarada kale sababtoo ah waxay la'aantii wasaaradda waxbarashada wax badan uma qabsoomeen salaanta islaamka ayaan ku salaamaya runtii markii la ii sheegay isbedelka dhacay waxaan idhi aniga 6 bay dhacday cidii la dhuuda garanaysa labada Axmed isu kay bedelay ilma kala dhacaan ma sha Allah aan ka bilaabay horta wasiirka qorsheynta Dr. Buuxane waxaan ku yiri sidii loogu sheegay si ka wanaagsanba uu noo soo dhaweey hadaan mahadin joogno waxa weeyaan qof hadalkan maanta ku tiraahdo aad bari ugu imanayso waxa weeyaan qof markuu maanta kula hadlayo markuu babriga la hadlayo hadalkiisu isku mid yahay waxa weeyaan qof nabad iyo wanaag jecel waa qof abuura bay'ad ay maxay hay'ado dadku ku barwaaqoobaan waxaan ogahay maanta qofkii ugu wanaagsanaa maxay hay'ado maanta ee loo dhiibi lahaa بدل لها أحمد إنه يا أحمد الكلام مركز سنة كنا وسنة كي أحمد يدي ما شاء الله شفايستا هذا أقول نقدم حي توي أحمد الكلام حي تو مساعدة وحبرشة هي سايمستا كنت وانها وكرة وان شقة بدن وحوي يعني واحد بدن وقد قابتي وحشيء وقتها وحقولنا إنه يسولوا وصيدا أي شيء تبعه هاي لم تيجوا ريسيف وزارة الحوشة اللي تعمل كله هو بيس أوف كيك بفوت قالوا ملاينها toorna wuu istaraaki doonaa laakiin stresska ugu badan adigu ku qabsan doona ka wasaaradda dalka ugu baaxad weynaa timi Allah kuu fudeeyo ducada iyo kaalmaha iyo hiilkana uu kula garab taagnaan doono Firstly, Your Excellencies, distinguished guests, I would like to, on behalf of the United Nations agencies, I would like to thank both ministers for their partnership over the recent mandates. The United Nations system anywhere is an intergovernmental system. That means that our first port of call is always the host government. It is natural that we are working with ministries and here in Hargeisa we have been working with the ministries of the government of Somaliland since that government was established 30 years ago. So the partnership, sometimes it is rocky, sometimes it is confrontational, but it is lasting. And I hope that the main characteristic will continue to be productive, positive, collegial. That has been our experience at least in recent years. وزارة waxbarashada intii ku leeyahay maamulka joogay waxa isu dhaxlayay oo kulba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku beegayaa mas'uulku ka qiimaha badnaa waxaan runtii halkan uga mahadnaqayaa gadaadiyihii ama bilaabihii maamul daadajinta samsam cabdi aadan ilaahay ha barakeeyo leeyahay waa wasiiradii ku dhiiratay inay daadajiso ugu horreyn ku maamulka soo geliso dowladaha hoose
inay xilkaa qaban karaan aad baan ugu mahadnaqayaa wasiiradii ka dambeeyey oo dhan muddo meel buu joojiyey wasiirkan maanta wareejinayaa wuxuu gebagabeeyey mas-uuliyaddii halkii ugu sarreysay levelkii ay dowladaha hoose qaadi lahaayeen meel ka sarreysa buu gaadhsiiyey oo xilkii xilka weyn ayuu saaray weliba wuxuu ku dadaalay inay isdaba socdaanoo aanay kala horeynin dowladaha hoose ee dalku saddexdii markuu dhameeyey 5 buu ka daba keenay iminka wasiirka sugayo insha allah uu saxiixi doonaa insha allahu madal waxbarasho iyo qorshayn buu isugu jiraan way kala horeeyaane waxaan ku faanaa wasaaradda waxbarashadu waa taqure quraanka ku soo degay waxyi ku soo degay eeba markuu nabiga ugu galay alayhi salaatu wasalaam yiri allama al-insana ma lam ya'lam iyada ka koob wasaaradda aqoonteedu waxyi ku soo degay inta kale waa shaqo bani aadam shaqada quleedahay waa waxbarasho waxaan dambe beri dambe soo baxay qorsheyn iyo gaashaandhig iyo visionary iyo beere iyo waxoo dhan waxbarasho ay isugu imanayaan waa allama al-insana ma lam ya'lamtaa hiddaha dhaqanka diinta procedureska technology-ga dowladnimada intaasoo dhan isu gudbinteedu waa waxbarasho anigoo ku hadlaya magaca boorka xubnihii halkaa joogaan waan idinku hambalyeelaynaa intaad nala shaqaysay talada iyaduna waxay tahay annagu shaqadayada wasaaradda inaanu la garab taagannahay what we call strategic advice ilaahay baa mahadle kulanka kule isugu keenay labada wasiir labada axmed ee saaxiibka nahay labadaba ee mas'uuliyadda ay labada wasaaradood la kala wareegayaan waan ugu ducaynaynaa runtii labadaba waa laba oday oo muddo dheer wada shaqaynay mid walbana wanaag badan iyo dadaal iyo karti baa ku jirta marka inuu ilaahay u yasiray ugu rajaynaynaa wasiir axmed toorno runtii dhowr qodob oo maamul ahaan aanad u boorinayno oo ku dhiiraday baa jiray in database ardayda loo sameeyo ardaydu aanay ka guurin iskuulkii ama classeski si consequence-ga u soconayay aanay ka guurin iyo guddida strategiga ah iyo maamul daadejinta saddexdaasiba runtii waa saddexda qodob ee waaweyn aan ka soo qaadanayo wasiir buuxane runtii wada shaqayn dhow baanu lahayn wasaaradda qorsheyntu waa wasaaradda geedka ee laga soo galo talo kasta oo uu qaadayo iyo tallaabo kasta oo uu qaadayo runtii si uu maamulaaga iyo sifaha iyo shuruucda ugu hubiyo xafiiska uu kula soo noqonayay markaa marjac baan u ahayn waxaan halkan kasii sagootayeynaa inagama foge walaalkeena wasiir axmed toorno oo muddooyinka ugu dambeeyey 4 years ama 4 sano hogaaminayay wasaaradda waxbarashada oo dadaal fara badan iyo soo jeed badan iyo tacab badanba soo geliyay sektorka waxbarashada oo dhammaantaan markhaati ka nahay waxaan soo dhaweeyaa kale wasiirkeena cusub wasiir axmed doctor axmed buuxane oo isagana rajeynayno inuu halkaa kasii qaadi doono geedigaasi waxbarashada ee mas-uuliyadda maanta ula wareegayo waxaan kugu soo dhaweynaynaa wada shaqayn waxaan u rajeynaynaa in tiimkaa wasaaradda kusoo dhawaanaysaa ay diyaar ku leeyihiin inay ku garab galaan kula shaqeeyaan hadday noqoto degmo gobol xarun iyo hanwadeennada kala duwan ee hay-adaha caalamiga ah ee wasaaradda la shaqeeya بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدن وسير وسارة قرشينتا وميل الله دري قرشها دالكنا يهرمرتيسا عدة قرش سمين سنة وإني مركه هري داتا يدوكم أي حشو مرة وهريسا سيدا أوجي وسارة حوجي وحي كشقيسا داتي كشقيسا وحنا رنتي وأه بيس الوحاس والداتا لا أوريو waxa ugu yar in ururna waxa kamid ah sarfeeyada loo diro shaqaalaha ee degmo iyo tuulo ka soo dalka tirsan intigaan waxa kamid ah tadbiiliga loo ururiyo price-ka oo la yiraahdo consumer price index oo aan soo saarno bil kasta waxa kamid ah mashaariicda xoog badan la socota GDP-ga soo saarno mar kasta dhacdooyinkaas iyo daataas ayaa laga sameeyaa marka balaankii dalka iyo qorshihiisii iyo quwadda dhaqaale haysano iyadoo la eegayo tahantida qaranka ah iyo wixii kaalmo ah ee inoogu yimaada adduun weynaha isku dubashidkooda qurxintooda iyo meelu samayntooda
waxaan u mahadnaqayaa dhammaan hay-adihii adduunka oo uu maanta inoo matalayo Simon iyo inoo matalayso Safiya Jibril iyo hay-adihii internationalka ahaa ay Xaliimo iyo inoo joogaan Sacdiya Caalan iyo kala midka ah iyo sidoo oo kale dadkiina garab galay ag joogay intaasoo waqti dhammaan waa u mahadnaqayaa wasaaradda cusub aan nimaday waxba ka sheegi maayo waayo muddaan soo ahaa macallin laakiin haddana aqoonta ay hayaan weli ma qaadan karo lakin waxaan ballan qaadayaa inaan noqdo cid waxal tashata ilaahay baynu mahad oo dhan aynu u celinaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin isu keenay innagoo oo caafimaad qabna oo nabad qabna wasiir waxaan kugu soo dhaweynayaa markaa intii anigu aan joogay ardaydu way laabmeen anigu waxaan ugu yimid 300 kun maantana waa yaakii 600 kun in ku dhow weliba waxaan ku jirin intii sana dugsiyeedkan ayaan ku jirin aad baan ugu faraxsanahay dugsiyadu sidii aad arkaysa goobaha waxbarashada jaamacaduhu aanay ku jirin 1500 meelahaas ay hayeen markaan imikana waa adiga arka 2500 bay marayaan waxa kale oo aan ku faraxsanahay in macallimiinta laftigoodu wasaaradda markii la igu wareejiyay 6000 meelahaas ay hayeen shaqaaluhu maantana 8000 bay marayaan weel xogeed baanu sameynaa weel xogeedka berigii la sameynayay 2010kii wasaaradda qorsheynta guddigii bay igu soo dartay farsamee sameynayay waa la iga codbatay laakiin waxaan ku yidhi war statistics ana waxoogaa ka bowsaday individual data ardayda qof ha loo geliyo iskuulada qof ha loo geliyo markaas inaga u rogan kareyna sida aynu doono laakiin waa la iga codbatay waxa data aggregate la gelinaya iskuulka waxa 100 arday baa dhigata konta baa habla 30 baa laakiin midda characteristics ma garanaya astaabihiisa imika ayaan ku guuleysanay nimankii labadii ilana yaray ku guuleysteen magacooda hadii halka joogaan waan sheegaya hadaan joogin waan sheegaya Sacad baa la yiraahdaa iyo Maxamed labaduba xafiiska imtixaanaadka ka tirsanyiin Sacadka lootba labada ayran halkan anagu ku sireenaa la yiri waxaan u baahanay lacag yar source lagu sameeyo waxaan ku leeyahay wasaaradda ma aanu joogin qof computer science bartay soo inaga jaamacadaha inta ka soo baxnaa labada ayran baa anaga sameeynaa iyo xafiiska imtixaanaadka way ku guuleysteen maanta qof waliba xogtiisu halkaas ay ku jirtaa arday walba ID baa la sameeyay unique identification number aanay cid la lahayn imika hadaad ilmahaaga geliso teleefankaaga geliso waxa ka soo boodaya carruurtaada mid waliba wuxuu ku sugay marka waa data sugan oo sax ah waxaana ka soo baxday iskaashiga ilaahay baa inoo saamaxay inta ka sokaysa iskaashiga dhamaanteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda iyo agaasimo waxdiyada gudoomiyaasha gobolada degmooyinka iyo dhammaan howlwadanada waxbarashada oo macallimiintu ugu horeeyaan waa la jazakallahu khayr waajibaadkeeni baynu gudanay halkaa ka sii wada aruna abaal baardii haya sidii wanaagsaneyd ay la shaqeysteen imikana daydi kama fogiyo kabalkaan jooga wasaaradda qorsheynta aad baan ugu faraxsanay dee wasaarad kaloo taydiya tanna waa wasaaradaydii markii waa labada wasaaradood ugu shaqo badnaa intii shaqadayda aan shaqaynayay noloshayda marka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa